halkani waa BBC oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. jimco wanaagsan kulanti waxaan dhegaystayaal meel kastoo naga maqlaysaan waa 11 bisha maarso sanada 2022 arrimahan barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha wadanka Ukraine oo bilaabay inay weeraraan bartilmaameedyo cusub oo ku yaal deegaano horle oo dalkaasi ah xilli madaxweynaha Ruushka uu baritaaray qorshe uu soo jeediyay wasiirka difaaca ee ah in dadka bariga dhexe ay ugu baaqayaan in ay si mutadawacnimo ah ugu soo biiraan dagaalka ay ka wadaan Ukraine. dagaalka Ukraine ka socdana waxa uu horseeday in cirka uu isku shareero qiimaha la kala siista shidaalka caalamka. Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemay. qiimaha shidaalka aad iyo aad buu u kacsanaa isbuucii hadda lasoo dhaafay magaalada Muqdisho $1 iyo bar litarkii buu ku sii cagacageynayay iyadoo loo bartay 12 bilood u dambeysay in 3 litar $1 la gato waqtigii oo cudurkii COVID-19 uu yimid iyo boqolaal qoys oo ka barakacay abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah qaybo badan oo ka tirsan Soomaaliya oo la sheegay inay ku tabaalisan yihiin gobolka Sanaag. duruufo fara badan bay ka cabanayeen oo ugu horeyso daadkii oo hadda dhulka sii yaraaday biyaha oo aad u ciriiri ah iyagoo weliba ay wataan xoolo aad u jilicsan xoolaha qaybtood xanuuno ayay sheegayeen waxa kale oo aad ay uga cabanayeen in duruufaha dhaqaale iyo waxa ay wax ku gataan inay waayeen. qodobadaasi oo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geelaan ugu Cabdi Ibraahim Cagaarna la socodsiinaya balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Maxamed Shiil Xasan. mahadsanid Cabdi Fatax. ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine ayaa bilaabay inay weeraraan bartilmaameedyo cusub oo ku yaala meelo kala duwan oo dalkaas magaalada Dnipro oo ku taala bartamaha ayaa diyaaradaha Ruushku duqeeyeen goobaha la duqeeyay waxaa ku jira warshad samaysa kabaha guryo la degan yahay iyo xanaanada caruurta. Ruushka ayaa sheegay inay duqeeyeen garoon diyaaradeed oo militarigu leeyihiin oo ku yaala magaalada Lotiski oo ku taala dhinaca waqooyi galbeed ee Ukraine iyadoo Ivano-Frankivsk oo ku taala koonfurta galbeedna la duqeeyay. maamulayaasha magaalada dhinaca waqooyi ku taala ee Chernihiv ayaa sheegay in duqeynta xalay dhacday lagu jiray biyihii magaalada. Jack Watling waa cilmi baare arrimaha difaaca ah oo ka tirsan macadka Royal United Service Institute wuxuu la hadlay BBC-da wuxuuna sharaxay muhiimadda weerarka lagu qaaday magaalada Dnipro. Dnipro gudaha fog ee Ukraine ayay ku taallaa. Ruushkuna weli ma aysan weerarin tan iyo maanta. waxay la tahay sababta aan arkayno ee ah inay hadda uga wareejiyeen bartilmaameedka in ay tahay ciidamo badan oo ka imaanaya dhinaca koonfureed siiba Kharkiv oo waqooyi ka xigta Donbas kuwaas oo isku wareejinaya Dnipro waxayna ugu dambeyntii doonayaan inay go'doomiyaan ciidamada Ukraine ayna ka jaraan sahayda. sidaas haddii ay dhacdo waxaa jira waqti kooban oo Ukraine ay ku sii wadi karto dagaalka. warbaahinta dawliga ee Ruushka ayaa soo warinaysa in magaalada ku taala Ukraine ee Volnovaka inay qabsadeen kooxaha Ruushka taageera ee goosadka ah. ma jiro warbax madax bannaan oo xaqiijinaya qabsashada magaalada ku taala marinka magaalada lagu hareeraysan yahay ee Mariupol. muuqaallo dhinaca satellite-ka oo ay qaadeen shirkado Mareykan ayaa muujinaya kooxo ciidamada Ruushka ah oo ku sugan meel u dhow Kiev taas oo loo qaatay in ciidamada Ruushku ay ku soo dhawaanayaan caasimadda Kiev. madaxweynaha Ruushka ayaa taageeray soo jeedin ka timid wasiirkiisa gaashaandhigga oo ku saabsan in Ruushku helaan waxa ay ugu yeereen dad mutadawiciin oo ka yimid bariga dhexe oo uga dagaalama Ukraine. shir jaraa'id oo telefishinka laga sii daayay ayuu Putin ku sheegay in Ruushku ay tahay inay fududeeyaan sidii dagaalyahanadaasi loo keeni lahaa Ruushka si ay u gaaraan Ukraine ugana dagaalamaan. wuxuu ku eedeeyay reer galbeedka inay abaabuliyaan ciidamo calooshood u shaqaystayaal oo ka barbar dagaalama Ukraine. madaxweynaha Ruushka Putin ayaa lagu wadaa inuu magaalada Moscow kula kulmo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko. Belarus waxay saldhig u tahay ciidamada Ruushka waxayna Ruushka u ogolaadeen in ay isticmaalaan qayb ka mid ah dhulkooda si ay uga fargeliyaan Ukraine. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa sheegay in waqooyiga Kuuriya ay wado tijaabin gantaal ridada dheer oo aad xoog badan. Mareykanka ayaa arrintaa ku macneeyay khatar soo kordhaysa. waqooyiga Kuuriya ayaa waxay sheegtay in
laba gantaal oo ay dhowaan rideen loola jeeday in la sameeyo satellite cusub oo waxbasaasa. intaasi waxaanu ku soo gabagabaynayna warkani duhurnimo. mar kale aan idinku wareejiyo cabdifataax xagayre. aad baad u mahadsan tahay maxamed shiil xasan ayuu kaasi ah. wararka caalamka ayuu inala socodsiinaya. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownay sida aad warka caalamka ku maqlayseen, ciidamada ruushka ee ku sugan gudaha waddanka Ukraine ayaa bilaabay inay weeraraan baltilmaameedyo cusub ay ku jiraan laba magaalo oo ku taal galbeedka dalkaasi ama ku yaal galbeedka dalkaasi. Moscow waxay sheegaysaa in maanta ay duqeysay saldhigyo ciidamada cirka ay ku leeyihiin magaalooyinka Lutsk iyo Ivano-Frankivsk. warbaahinta qaranka ee ruushkan waxay ku andacootay in magaalo istiraatiiji ah oo u dhow magaalada Mariupol ay qabsadeen ciidamada goonigosadka. dhanka kalena madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin ayaa baritaaray qorshe uu soo jeediyey wasiirka difaaca ee ah in ay dadka bariga dhexe ugu baaqayaan inay si mutadawacnimo ah ugu soo biiraan dagaalka ay ka wadaan Ukraine. faahfaahinta wararkaasina waxaa isku soo duway oo haatan studio ugula soo biiray Xasan Cidigeele. bal Xasan, maxaa ugu dambeeyey marka hore? cabdifataax, ciidamada ruushka ayaa kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan guud ahaan dalka Ukraine, waxayna isku sii ballaarinayaan magaalooyin kale iyadoo duqeymo ka geystay laba magaalo oo ku yaala galbeedka dalkaasi Ukraine. xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in maanta oo Jimco ah ay duqeysay garoomo military oo ku yaal magaalooyinka Lutsk iyo Ivano-Frankivsk ee galbeedka dalkaasi Ukraine. saraakiisha maxalliga ee Ukraine waxa ay sheegayaan in laba askari oo reer Ukraine ah lagu dilay magaalada Lutsk, halka ilaa 3 qarax oo xooganna ay gilgileen magaalada Ivano-Frankivsk. dhanka kale, magaalada ku taala bartamaha dalka ee Ukraine ee la yiraahdo Dnipro ayaa lala beegsaday duqeymo 3 oo dhanka cirka ah oo ruushku halkaasi ka geystay, kuwa oo waxyeelo u geystay guri dabaq ah iyo xarun la sheegay in lagu xanaaneeyo dhallaanka oo ay ku waxbartaan. wariye ka tirsan BBC da oo magaaladaasi tagay ayaa sheegay inaysan jirin bartilmaameedyo ciidan oo halkaa ka muuqda, waxaana dadka qaar ay haatan bilaabeen inay isaga baxaan magaaladaasi. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga Maraykanka ayaa isna sheegay in magaalada Chernihiv oo dhanka waqooyi kaga taala caasimadda Kiev ay hadda go'doon gashay. wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in ciidamada goonigosadka ahi ee jamhuuriyadda iskeed uga dhawaaqay madax banaanida ee Donetsk ay qabsadeen magaalada Volnovakha oo u dhaxaysa Donetsk iyo magaalada godoonsan ee Mariupol. ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya qabsashada magaaladaasi. hase yeeshee cabdifataax, muuqaalo dhanka satellite-ka ah oo la baahiyey, gaar ahaana Maraykanka uu baahiyey, ayaa ciidamada ruushka waxaa la arkayey iyaga oo ku sii siqaya gudaha magaalada Kiev, oo waxa ay dhaafeen ilaa xalay ilaa iyo 5 kilomitir oo ay ku siqeen magaaladaas iyagoona markaa isballaarinayay. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka ayaa waxa uu warbaahinta ruushka u sheegay in ciidamada fallaagada goonigosadka ay sii xoojin doonaan go'doonka la geliyey magaalada Mariupol. isagoo la hadlay BBC da ayaa isuduwaha hay'adda samafalka MSF ee dalka Ukraine Alex Wade waxa uu sheegay in duulaankii ugu dambeeyey ee ruushku ku qaaday magaalooyinkaasi ilaa haatan nabadda ahaa oo gabaad u ah dadka rayidka ay walaac ku hayso dadkii hoyga iyo weliba taageeradu u doonanayay magaalooyinkaasi. Dnipro, like many other cities around Ukraine right now, are places where Dnipro sida magaalooyinka kale ee Ukraine waa meelaha hay-adaha caalamiga iyo kuwa gargaarka caalamiga ay isku urursadeen si ay u helaan goob nabdoon oo ay ku shaqayn karaan oo aanu ka sii wadi karno howlaheena bini'aadminimo iyo howlaha degdegta ah. waxaa kaloo jira magaalooyin 100,000 oo soo barakacay ay ku soo qaxeen si ay goobo nabdoon u helaan. sida daraaddeed haddaan aragno dagaalada oo ku sii kordhaya deegaanadaas waxay nooga dhigan tahay weji cusub oo aad u cakiran, iyadoo ay nagu adkaanayso in aan shaqayno. waxaana sidoo kale arki doonnaa dad xaalad cakiran ku jira markay dagaalka ka cararaan mar kale. also we would see people who are already in very difficult circumstances be in even further difficult circumstances when they have to flee violence yet again. cabdifataax kaas wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan hay'adda samafalka MSF oo tagay magaaladaasi Dnipro. dhanka kale, isballaarinta ruushka iyo duqeymaha cusub ee ay wadaan ciidamada ruushka ayaa waxa ay la kulmayaan cambaareyn caalami ah. afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka u hadlay Ned Price ayaa cambaareeyey duqeymaha ay ciidamada ruushka ku hayaan magaalooyinka dalka Ukraine, wuxuuna ku baaqay in dadka rayidka loo ogolaado in si nabad ah ay uga baxaan magaalooyinka haatan ruushku bartilmaameedsanaya. Putin's military plan to quickly capture Ukraine, it is clear now, has failed.
qorshaha militari ee putin uu doonayo inuu ku qabsado yukrain waxaa iminka cad inuu ku fashilmay sidaa daraaddeed wuxuu iminka u leexanayaa istaraatiijiyad uu qashin ku daadinayo goobaha shacabka si uu u jebiyo rabitaanka dadka reer yukrain taasna waa arrin aanay suuragal ahayn inuu sameeyo shalay uun waxa aan aragnay warar sheegaya in ruushka uu duqayn cirka ah la beegsaday isbitaal ku yaalla mariupol dhammaanteen waxaannu aragnay muuqaallo laga naxo oo goobta laga soo qaaday xaqiiqada ah in labada kelmadood ee cisbitaalka dhalmada iyo weerarka ruushka aanu isku jumlad isugu keennayna waxay muujinaysaa heerka waxshinnimada leh ee kremliinka uu ku dhibaataynayo yukrain maternity hospital and Russian strike in the same sentence speaks to the level of brutality that the Kremlin is inflicting on the people of Ukraine. kaasi waxa uu ahaa Ned Price afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Mareykanka xasan oo wasiirka gaashaandhigga ee ruushka dhankiisa waa soo jeediyey qorshaha in dadka bariga dhexe ay ugu baaqayaan inay si mutadawacnimo ugu soo biiraan dagaalka ay ka wadaan waddanka Ukraine arrintaas waxaa baritaaray Putin muxuu sheegay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu taageeray hindisahaasi uu soo jeediyey wasiirkiisa gaashaandhigga kaasi oo ahaa in la helo waxay ugu yeereen mutadawiciin ka socda wadamada bariga dhexe si ay uga dagaalamaan gudaha dalka Ukraine oo dabcan ay gacan u siiyaan duulaanka ruushka kulan maqal iyo muuqaal lahaa oo laga sii daayay telefishinka qaranka ee dalka ruushka ayaa madaxweyne Putin waxa uu la yeeshay golihiisa ammaanka kulankaasi waxa uuna sheegay in ruushku mutadawiciintaasi u fududeynayo in ay yimaadaan dhulka ay rabaan inay ka dagaalamaan oo dabcan ula jeeday gudaha dalka Ukraine. haddii aad aragtaan dad doonaya inay si mutadawacnimo ah gaar ahaan si lacag la'aan ah u imaadaan si ay u caawiyaan dadka ku nool Donbas meel dhexe uga sii hortaga garabna ku siiya inay gaaraan furimaha dagaalka madaxweyne Putin waxa uu reer galbeedka ku eedeeyay inay iyagu abaabulayaan ciidamo calooshadu shaqaystayaal ah oo ka dagaalama gudaha Ukraine ruushka ayaa door muhiim ah waxa uu cad fatax ka qaatay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suuriya isagoo taageerayay madaxweyne Bashar al-Assad horaantii toddobaadkan sarkaal sare oo Mareykan ah oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga Pentagonka ayaa ku eedeeyay ruushka inuu isu diyaarinayo inuu qoro dad reer Suuriya ah si ay uga dagaalamaan gudaha Ukraine oo ay ruushku u taageeraan waata geelo ugu dambeyntii dhanka kale dagaal ka socda gudaha Ukraine dhibaatooyinka burburka iyo dadka dhimanaya iyo dhaawacyada dadka soo gaaraya ka suko waxa la sheegayaa in dhibaato dhanka cuntada ay soo fod saaran tahay arrintaasi waxaa sii xoojiyey Cabdi Fataax kadib markii mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka wax soo saarka cunnada ee dalkaasi Ukraine ay sheegtay in haddii ciidamada ruushku ay qabsadaan magaalooyin badan oo ay dalka isku fadiyaan arrintaasi ay lid ku noqon doonto wax soo saarka cunnada ee dalkaasi oo sanadkan aan la beeri doonin dalagii loo baahnaa shirkadaasi ayaa waxaa la sheegay inay tahay shirkadda siisa cunnada ciidamada militariga ee dalka Ukraine laakiin marka laga soo tago gudaha Ukraine iyo ruushka dunida inteeda kale ayaa laga dareemayaa dhibaatadan qaaradda Afrika ayaan ugu daran meelaha saameynta ay ku hayso marka laga soo tago gudaha dalka Ukraine aad baad u mahadsantahay xasan cali geela ayuu kaasi ahaa faafahinta warkaasi ina siinaya isla saameyntaasi aynu sii wadna ee dagaalkaasi ka soconaya Ukraine waxa uu horseeday in uu cirka isku shareero qiimaha la kala siisto shidaalka caalamka qiimaha shidaalka ayaa dunida haatan wuxuu marayaa meeshii ugu sarreysay muddo 10 sanadooda iyadoo fursada shidaalka qayriinka ah maanta la kala siisanaya in ka badan $130 lacagta Mareykanka Afrika waxaa si weyn looga dareemay qiimahaasi sare u kacay iyadoo magaalada Muqdishona ay ka mid tahay meelaha sida weyn arrintaasi laga dareemay haddaba si aan xog dheeraada oo arrintaasi la xiriirta u helno waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Cabdi Abshir Dhoore agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee Soomaaliya oo marka hore aan weydiiyey qiimaha lagu kala iibsanayo shidaalka magaalada Muqdisho maanta والمعن قيمة شدالك آد آد بوقعسنا أسبوعي هذا اللي صار في مقالة مقدسة $1 يبر لتر كي وكسي عجينا هي أيضا الله برتاي ستيت وانك بلاد قدام بيسي إن 3 لتر $1 لقطوه في عذر في كوفيد-19 ويميد مركا آد بلوغ قيلنا قيمه آد أسرع هذا maxay tahay marka sababta keentay in qiimaha uu sidaas sare ugu kaco walaal waxa weeye waa saameyn caalami ah oo dagaalkan ka socda Yurub wadan aad iyo aad shidaal u soo saara oo raashka ah ayaa cunaqabateyn ballaaran ba adduunyada ay saartay cunaqabateyntaas waxa ay keentay hadii in caalamku oo shidaalkaas oo saameyn xoog leh oo ku yeeshay shidaaladii kale midda kale waxa jirta adduunyada maadaama ay 12 bilood u dambeysay shidaalkii lagu khasaaray wadamada qaarnada danahooda ka faa'iideysan oo shidaalkii way diideen inay soo saarkiisa kor u qaadaan
waxaana kamid ah waddanka Mareykanka oo kayd fara badan ku haysta jasiiratul carab inuu kaydkiisa soo fasaxo waa diiday Mareykanku dhinaca kale Sacuudi Carabiya iyo OPEC iyo dhammaantoodna in ay shidaalka kordhiyaan si qiimaha ruushka loo balance gareeyo laakiin cabdiyow shidaal cusub oo muqdisho yimid ma jiro marka maxaa keenaya in sida degdega sicirka kor loogu qaado shidaalka walaal maalin walba yimaada magaalada muqdisho shirkado aad u fara badan baa shidaalka keena waa la dhihi karaa dowladda Soomaaliya shidaalka yimid usbuucani waxa ka dambeeya canshuurtii laga qaadi jiray shidaalka hal la dhaafo si culayska uga yareeyo dadka Soomaalida ah laakiin shidaalku maalin walba u yimaada walaal maraakiib soo daldashay Soomaalidu leedahay shidaalka iyo gaaska intaba waa marka kaydka shidaalka ee muqdisho yaal intuu leegyahay runtii kaydka shidaalkii hore ee Soomaaliya aad loo dhisay Soomaaliya oo dhan kaydkeeda shidaalka meesha ku yaala waa laba kayd midna dekada ku dhex yaala midna dhinaca iskool buluusiga jira marka kaydka shidaalka yaala qiimihii uu ku yaalay iyo qiimaha suuqa imaanaya iyo waad garanaysaa tartanka suuqa waa xor iyadoo la gadaayo dollar iyo jarjar kaaga ma gedi kartid wax ka yar marka iyadu waa tartan baa ka dhaxay xaguu shidaalkaas ka yimaada xoogiisa waxa laga soo qaadaa imaaraadka laga soo qaadaa laakiin shidaal Sacuudiga iyo Iiraan iyo ka yimaado ganacsatada cabdiyo waxa lagu eedeynayaa inay fursad u arkaanba markii shidaalka uu kaco oo iyagoo shidaal ugu yaal oo qiimo jaban ay ku heleen ay haddana lacagta ku daraan iyagoo eegaya dantooda oo keliya walaal macaan sideedaba ganacsatadu waxay raadiyaan faa'iido laguma eedayn karo qofka maxaa faa'iido u raadinaysa cidda la rabo haddii wax la kontrooli karo wax kontrolsha waa in la helo dowlad dhexe oo dhihi karta qiimahaas ka badan lama gedi kara wax laakiin ninka ganacsadaha wuxuu raadinayaa faa'iido hadduu arko suuqa oo faa'iido laga helayo faa'iidadu raadsan maalinka ay qasaaraha ay joogeen oo ah sanad 8 bil ka hor oo dhulka galay bahalkuna cid ayaga ka yeelaysa lama arko oo suuqa waxa la gadayay 30 senti litarkii ayaa la gadayay marka waa suuq xor ah cid oo xukumaysa ma jirto ogow shidaalku wuxuu saameynaa nolosha waddanka oo dhan u saameynaa dalalka caalamka waxay leeyihiin nidaam ay ku xakameeyaan ama ay ku dejiyaan qiimaha hadba meeshadaha lagu kala iibsado gaar ahaan shidaalka qiimo waxaa jira si gaara aan loo dhaafi karinba Soomaaliya waxay leedahay malahan haadii iyo dawladdii xakameyn lahayd marka goorma isleedihiin heerkaas waa la gaari doonaa walaal macaan suuqa xorta ah ee Soomaaliya ka soo bilaab Hargeysa ilaa iyo Kismaayo badeecadu ay isku xiran tahay cid dhihi karta waxa la gado iyo waxa ma gadayna ma jirto waaga markuu bariyo suuqa Bukaaraha wax walba ay qiimeyntu ka timaada tartanaana ka furan tartankaas wuxuu keenaa marka badeecadu inay kor u kacdo inay hoos u dhacdo marka qof ganacsata iyo koox ganacsata ay wax lagu eedeyn kara marka dawladnimada dawladda weydiin doonta insha Allah marka fursad u hesho laakiin aadan ugu baahanaa anaga dhan dawlad xakamaysa dalka iyo dadka iyo nabadda iyo wax walba waa xaaladda marka haddii ay sidan ku sii socoto maxaa la samayn karaa bay kula tahay walaal macaan waliba shidaalka qiimihiisa wuxuu ku soo aaday abaartii ugu xumayd baa Soomaaliya maanta ka jirta waxa ka jira oo kale sida la socoto doorashadaasna waxa ay keentay sicir barar aad u sareeyo waayo lacag laaluusha oo xad dhaaf ayaa la kala qaadanaya iyada naftirkeeda lacagtaasina suuqay soo galaysaa bulshadayna badeecada ku qaalinaysaa guryaha kala gadashadooda iyo nolosha oo dhan marka Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa meesha ugu xun shicbiga naga noloshooda marka laga hadlayo marka waxaan kula talin dawladda Soomaaliya in ay joojiso canshuurta ay shidaalka ka qaadayso caalamka oo dhan hadda waxaa ka socda mushkilad shidaal caalamku wuxuu fadhiyaa in laga wada hadlo shidaalkii soo saaridiisa kor loo qaado marka dawladda Soomaaliyeed saameyn inay ku yeelato wasaaradda maaliyadda mas'uul sare qiimo badan oo wasiir ka yahay waxaan kula talinaynaa inuu shidaalka canshuurta ka dhaafo labada bilood soo socota insha Allah kaasi waxa uu ahaa cabdi abshir dhowre agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee Soomaaliya oo khadka taleefanka igu waramay Facebook ay dhageysalban raayigooda warbixinta kaga soo dhiibteen mid ay labaan soo qabtee Maxamed Ismaaciil Sheekh Cabdi Kariim oo ka soo qoray Ceelbo Sanaag waxa uu leeyahay dagaalka ka socda Ukraine ee horseeday in cirka uu isku shareero qiimaha la karsiisto shidaalka caalamka runtii waa arrin walaaceeda leh waxaana ay muujinaysaa sida uu adduunku ugu dhibaatoonayo dagaalka ka socda Ukraine awgiis Maxamed Qare oo ka soo qoray magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay dagaalka Ukraine ka socda ee hubaashi waxa uu saameeyay caalamka oo dhan haba ugu darnaado geyiga Soomaaliyeed kaas oo awal la tiicayay abaaro baahsan oo ku dhuftay waxaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC ee Facebook isla qodobkaas ayaanan galabta dooda jimcaha ku eegi doonaa oo aad ra'yigiin cod ahaan inoogu soo duubi kartaan BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haddaba abaarahaas la soo sheegay oo qaarkood dhegeystayaasheena ay codkooda ka soo dhiibanayeen ayaa boqolaal qoys oo ka barakacay abaartaasi oo qaybo badan ka tirsan Soomaaliya ku dhufatay waxay u hayaameen gobolka Sanaag
waxaana la sheegayaa halkaasi inay haatan ku tabaaraysan yihiin. dadkaas oo u badan xoolo dhaqato ayaa intooda badan waxa ay ka tageen gobolka mudug iyo gobolada kale ee ku xiran gobolka sanaag. haatanna waxay ka cabanayaan in nolosha ay ku adkaatay. haddaba maxamed siciid faarax waa agaasimaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta ee hadaf waxa uu socdaal ku maray deegaanada ay dadkaasi ku soo hayaameen. khadka taleefonka ayaanan marka hore ku weydiiyey sida uu xaal yahay. xaaladda dadka soo hayaamay ee ka yimi gobolada ay aadka u saamaysay abaarta ka jirtay puntland ama dalka soomaaliya guud ahaan waxa ay ku sugan yihiin deegaanada kala gedisan ee gobolka sanaag. gobolkan ayay usoo hayaameen sababahana waxay ahayd gobolkan oo xoogaa roobabka kaga fiicnaa goboladii kale ee sanadka. marka waxay degeen deegaanada kala gedisan, weliba si gaar ah waxa ay ugu urureen meelaha lahaa riigaga iyo ceelasha ku yaalaan sida damalaxagahe, ceelbuu, mindhiciir, carmale iyo dawo. dadkaas goormay halkaa yimaadeen? wallaahi dadka siday noo sheegeen 3 bilood ugu dambeeyeyba way soo hayaamayeen oo deegaanada wayna imanayeen. haba ugu daraadeen bishii ugu dambeysay oo si aad ay uga soo hayaameen gobolka mudug, weliba kuwaas waxayn kuwa abaartu aad u saamaysay oo ay ka muuqdeen xoolahooda iyo iyaga noloshoodaba duruufo aad u adag. ma la ogyahay marka tirada dadka halkaas u soo hayaamay? wallaahi tiradooda lama xadidi karo. anigu dhulka aan marray tiro aad u fara badan baa joogtay. gobolka dhanna waa ku kala firirsan yihiin, ilaa koonfurta gobolka ilaa iyo bariga ilaa iyo waqooyiga. mana cadda tiradoodu, ma xadidna. laakiin sidaan aragnay sambalada gobollo kala gedisan bay ka yimaadeen, mudug bay ka yimaadeen, nuwaal bay ka yimaadeen, bariga karkaar qayb baa ka timi, xataa sool oo gobolka sanaaga deriska la'ah dad baa ka yimi oo kasoo hayaamay. dadkaas ma baadiyaha unbay ka soo tageen mise waxaa ku jira dad iyana abaartu intay saamaysay oo beeraha qodan jiray oo beerahoodii isaga soo tegay iyo tuulooyinka ay ku noolaayeen? dadka anaku aragnay waxay ahayn dadka xoolo dhaqatada ah, dad geel wata iyo dad reer guraa oo iyana arigoodii iyo xoolaha noocoodii kale lasoo hayaamay bay ahaayeen intaan aragnay. waxayna deganaayeen dadka baadiya ay u badan yihiin, weliba tuulooyinka agtoodana waa soo degeen. laakiin inay ka yimaadeen magaalo iyo meel kale ka yimaadeen ma garanayno, laakiin dhulka ay ka yimaadeen bay noo sheegeen oo meelahan soo aragnay. sida ay dadka mas-uuliyiinta iyo odayaashii waxgaradka noogu warramayna gobolka dhan bay aad ugu firiirsan yihiin. anaku meelo gaara un baanu soo marray oo maaragtay warbixintayada kasoo diyaarinay. maxamedow, meelahaas aad soo marteen dadkaa yimid ma xeryay galeen oo ay degan yihiin mise deegaanada un bay dhinac ka degeen? wallaahi degsimooyinka dhinaca miyiga ah ee tuulooyinka ku dhowdhow bay degan yihiin, magaalo may soo degin. kuwa geela wataana galayaal iyo meelaha miyiga ah ee dee cawska iyo baad kale bay degeen iyo jeexyada. kuwa kale ee reeraha wateyna waxay degeen meelaha ay dadka miyiga inta badan degeen reer guuraaga ah, laakiin wax magaalo soo degin maan araga. dadkaas haatan meel bay yimaadeen oo ay degan yihiin, laakiin noloshooda waa side? noloshooda wallahi si anaka ka aragnay iyo qaybso si wareysiyada noogu sheegeen duruufo fara badan bay ka cabanayeen. oo ugu horreyso daadkii oo hadda dhulka kasii yaraaday, biyaha oo aad u ciriiri ah oo ceelkii laga yaabaa ay ka cabayaan markay yimaadaan. dad fara badan markay ceelkii usoo hayaameen oo ay maaragtay madasha ay sugayaan ay mararka qaybtood aad ugu dheeraato, iyagoo weliba ay wata xoolo aad u jilicsan. xoolaha qaybtood xanuuno ayay ka sheegayeen inay maaragtay ku dhaceen. waxa kale oo aad ay uga cabanayeen in duruufaha dhaqaale iyo waxa ay wax ku gataan inay waayeen, maadaama xoolahoodii qaybtood laga gadan waayey. sababaha looga gadan waayeyna ay tahay dhaqaale xumadaas ka jirta dalka iyo qaybtooda xoolaha oo ka xanuunsanaya oo xoolo dee noqdeen aad u caata ah oo aan suuqa qiimo weyn ku lahayn. waxaa kaloo aad uga cabanayeen dhulka ay ka yimaadeen oo aad u fog, dhulkan ay yimaadeen oo aanay garanayn cid ay wax ka amaahdaan ama cid wax sii amahaysa. maadaama idiin sheegeen in meel fogay ka yimaadeen oo xitaa aanay heli karin dad ay wax ka amaahdaan, ilaa hadda marka dadkaas wax loo qabtay? walaa horta dhanka waxqabadka ma aan aragno intaan dhulka maraynay, iyana ma ay sheegin wax hay-ad madax banaan ama dowlad ama guddiyadan abaaraha inta badan lama magacaabay dadka inta badan aan maqlaynay oo yimi meesha maan arag. laakiin dadka deegaanka waxay noo sheegeen in iyagu si gaar ay isu xilqaameen, laakiin ay awoodii hadda ay ka tira badatay. qayb kamid a reer miyiga waxay dhaheen waxaan reer guuraa usoo hayaamay oo anaga iska duruufo hadda noqonay maadaama xilliga bishii saddexaad la marayo oo jiilaalkii sii adkaaday. dad muddo joog ah oo aad wax u yar adiga hadda magaalo aan joognay oo kale damalaxagre markaa wax ka qaybinayay. marka loo eego duruufihii meesha yaalay iyo wixii ay meesha ka qaybiyeen isma ilahayn. runtii weliba dadka aadka u dhib badnaa waxay ahayn dadka hadda dhowaanta maaragtay soo hayaamay, dad oo hadda ku cusub oo weliba deegaanadooda ay dhici kartaa inaanay roobab badan marka hore ka jirin sida dadka mudug kasoo hayaamay oo kale oo aan dhulka aada ugala kulannay deegaanka damalaxagre agaarkeeda oo kale.
kaasi waxa uu ahaa maxamed saciid faarax agaasimaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta ee hadaf oo khadka taleefonka igu warramaya. isla wararka abaaraha ku habsaday deegaanada soomaalida ayaan ku wada jirnaaye. waxaa deegaanada laga soo darinaya ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida ee waddanka etoobiya oo si weyn abaartu ay waxyeeleysay nolosha dadka iyo dunyadaba. arrintaas oo ka dhalatay roob yaraantii labadii xili roobaad ee ugu dambeysay ee guga iyo weliba dayrta ayaa sidoo kale waxay saamaysay waxbarashadii iyadoo qiyaastii 380,000 oo ardaya ay habacsanaan ku timid habsamay socodkii iyo waxbarashadooda. warbixin umurtaasi ku saabsanna waxaa Jigjiga ka soo diray Ismaaciil Ibraahim Buurgaaw. rasmiga ah waa qof lagu soo xulay calaamado fiican. waxaa sidii caadiga ahayd u socotaa hannaankii barisbarasho ee dugsiga, waana badi jawiga dugsiyada magaalooyinka ee deegaanka ee aysan abaartu saamayn, balse in ka badan 380,000 oo arday ayay abaartani saamaysay waxbarashadooda. waxaana ka mid ah 3 arday oo u dhalay Cabdi Jaamac Aadan oo ku nool degmada Galxamur ee gobolka Doollo. ciyaalka ii dhiganayay waxa weeye 3 ilmood wadarta guud oo ciyaalka waa 733 sabab abaaraha iyo gudiga iyo dadkii oo meelo kale oo hadda derisyada laga aaday awgeed baa ilmihii iyo inuu iskuulka irmana sababahaas sababtay madara. abaartan oo saamaysay 84 degmo oo ka mid ah 93 degmo ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa saamayn ba'an u geysatay geedi socodka waxbarasho ee sanad dugsiyeedka. in ka badan 1800 oo dugsi ayaa abaartaas saamaysay, sida BBC-da uu faahfaahiyay Cabdiqaadir Macalin Shukri, wasiir ku-xigeenka waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida. guud ahaan dugsiyada ka xidhmay deegaanka waxay ama abaarta ka saamaysay waxay leeyihiin 867 dugsi bay leeyihiin. waxayna kala yihiin 253 oo dugsiyada tooska dugsiga hoose dhexe oo ama loo yaqaano formalka, 936 waa dugsiyada iyagana loo yaqaano waxbarashada tooska ahayn ama regular lagu talagalay ABE loo yaqaano. marka totally kuwa u xidhmay waa 189 878 kamid oo iyaguna ABE-da ama waxbarashada regular ana dadku marna way baxaan marna way soo noqdaan marka iyaga waxa la yiraahdaa partially closed wayna furmaan wayna xidhmaan oo waxay ku xidhan tahay wareega dadka iyo ku soo noqoshada ku xidhan tahay. tirada guud ee ardayda ka saamaysay hadda waxbarashadooda runtii ugu dayacan 382,403 arday ayay ka saamaysay. 1,100 dugsi oo ka mid ah dugsiyada abaartu dhabqisay hannaankoodii barisbarasho ayaa gabi ahaanba xidhmay. iskuuladaasi waxaa ka mid ah dugsiga hoose dhexe ee tuulada Dogoobo ee degmada Galxamur oo ka mid ah degmooyinka gobolka Doole ee aan helin roob ku filan sanadihii la soo dhaafay, sida uu la wadaagay maamulaha iskuulkaasi Ibraahim Saciid Cali. waa dugsi hoose dhexe oo 1 up to 8 ah. guud ahaan sanadkan ardayda dhiganaysa waa 733 arday. wuxuu u xirmay sabab abaarta awgeed ah. deegaankii oo aan 3 sano aan roob arag, dadkii marka way barakaceen, waxayna u barakaceen biyo la'aan iyo baad la'aan. hayaanka iyo doolka bulshada xoolo raacatada ah si ay baad iyo biyo u helaan ayaa sababtay in arday badani ay loox turaan, kumana koobna saamaynta abaarta dugsiyada reer guraaga oo xataa waxaa loox turay arday badan oo dhiganaysa dugsiyada sare. run ahaantii abaartani horta waa wax dabiici oo ilaahay keeno. maxamed shukri maxamuud waa maamulaha dugsiga sare ee tuulada Dalaad ee degmada Qabridahar ee gobolka Qorraxay. ha ahaatee abaar la mid hadda ka hor ma soo marin deegaanka, saameyn aad u ballaaran ma samaysay dhan kastaba ahaatee xoolihii iska badaa dadkiiba xitaa hadda halis ku jira haddii aan gurmad degdeg la helin. ardada ay saamaysay kuley dugsi ahaan dugsi sare hadda Dalaad 450 arday ahaa ilaa 50 arday ma hayno. imtixaankii fiican middleka way galeen, markaan u yeernay bay fadhiisteen, kadibna abaar darteed xoolihii bay la jiraan oo dadkii waayeelkaaba dhaqaaq waayey, wixii raaci karana uu raacay, iyana xoog baa looga maarmi waayey. saa darteed waxay u kaceen xaggan iyo galbeed iyo bari labadaasba oo loo sii qaaday oo xoolahay u kaxayeen. marka abaartani waa abaar aad u dhib badan bay ahayd. in ilaahay nasri keena dadegana waan rajaynaa. marka saamayntu kuma koobna oo keliya xoolaha waxay saamaysay ardadii wax baranaysay. waxaana la arki doonaa insha Allah tacaala hadday aan degdeg ilaahay wax u geynaa ama dowladda gurmud u gaarsiin in albaabada dugsiga qaar kale soo laaba dhici karto. sida ardayda loogu celin lahaa waxbarashadooda oo ku xiran roobka guga oo la filayo in guud ahaan degmooyinka deegaanka ugu dambeyn ka bilowda bartamaha bisha foodo ee nagu soo haysa Abriil ayaa ah hawl u taala xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida oo haatan noo sheegay inay ku howlanayeen sidii ay u dhimi lahaayeen inta ay awoodaan saamaynta abaarta ay ku yeelato hannaanka barisbarasho ee dowladda deegaanka Soomaalida. Ismaaciil Ibraahim Buurgaawo, Jigjiga. ismaaciil aad buu u mahadsan yahay. markana ciyaarihii aan eegnaya xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska. kooxda Norwich ayaa waxay garoonkeeda ku qaabishay kooxda Chelsea 3-1 waxaa ku adkaatay
kooxda Chelsea iyadoo kooxda Chelsea taageerayaasheeda laga codsaday inay joojiyaan inay ku hadaaqaan taageerada u hayaan ninka iskale kooxdaasi waa Roman Abramovich. taageerayaasha ayaa ciyaartaasi xalay dhacaysay ee Norwich iyo Chelsea dhex maraysay waxa ay ku dhawaaqayeen magaciisa Roman Abramovich iyo taageerada ay u hayaan. Roman Abramovich ayaa waxa cunaqabateyn ku soo rogtay dowladda Ukraine. ciyaarihii kale ee xalay dhacayna waxaa ka mid ah Southampton iyo Newcastle oo kulmeen. Newcastle ayaa 2-1 ku badisay halka Wolverhampton Wanderers ay 4-0 ku dirtay Watford. Leeds United waxaa 3-0 kaga adkaatay Aston Villa. intaas ayaan idaacaddii ku soo gabagabeynaya waxaynu balanaa galabta 5 galabnimo inta ka horreysay sidaas iyo nabadgelyo.